السلام عليكم رمضان كريم ملك سأجوكتين إلى هاي مرت بشن بالخير نقديكو فيديو جن وحن دوبي ويك كهر إنتن رمضان بلامين سادرتد بعد أركيدون تان ما أراني مرت رمضان كريم so that's why أنا هاد إيدي لي هاي مرة حن لي هاي داو شوعان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب السود هذا وأنا والله السلام يا أسكو نقد ونكسن فيديو ما أنتم حسابسين هاي قيبتي عندكو بلانقاضي كوسابسنايد تشارلز ديانا iyo Camilla marka waxaan ka sheekeyn doonaa inkastoo aan maartay sheekadoodu ay aad iyo aad maartay u balaaran tahay intii muhiimkayd ma soo koobi doonaa videogii hore wataan ka sheekay xilliga iskuursadeen marka xilligaas aan ka bilaabaya si maartay aad sheekadu fahantaan ilaa marka ay kala tagayaan iyo Camilla ay iskuursanayaan marka intaas maanta videoga aan ka hadli doonaa insha Allah hadaad ugu cusub tahay subscribe aad wili saareen inta nagu soo birtana waxaan leeyahay soo dhawaada gacmo furan hadaad videoga jeclaatana like saar insha Allah marka videoga hadda inoo bilaabo waxaan ka bilaabaynaa markii ay Diana iyo Charles ay iskuursadeen inta iyo maalmihii ka horeysayba Diana iyo Charles markay iskuursanayeen aad bay u kala weynaayeen Charles marka Diana 12 sano ka weyn yahay marka iyadu nolosha maaragtay uu soo maray iyadu ma soo marin nolol kale uu lahaa markii intay isbaran labadoodu marka intii maanta idin ka sheekeynaya Charles markuu 12 jir ahaa buu Camilla bartay oo ay iyagu dhalinyarada isbarteen oo markaasiba jacaylkooda halkaas maartay ka bilaabmay marka markuu baran doono Diana iyada iyo Camilla iyo Charles in badan bay sii qanaan inkastoo Charles Camilla jeclaa iyada mu guursan inkastoo hadana ay family u qalanto kale ay family ay ka guursan karaan boqortooyadu ay Camilla iyadu ka soo jeedo Camilla sheekadeeda si fiican uma aqaano laakiin intaan maqlay iyadu waxay ka soo jeedaa reeraha ay boqortooyadu ay ku xidhnaayeen xilligaas ama lacagta leh ama magac leh marka iyadu buu guursan lahaa laakiin sababta uu u guursan family-gana la rabin waxay ahayd iyadu marka gabadh ma ahayn sababtaas maartay gabadha marka iyada aan loo rabin Charles inay iskuursadaan loo doortay Diana maadaama iyadu ahayd gabadh ay ahayd oo naive iska ahayd aan soo marko waxa ma kala ogeyn marka Camilla inkastoo ay doonaysay inay Charles guursato hadana ma suurtagelin Charles markuu Diana guursaday Camilla iyaduna qof kale iyaduna guursatay Charles marka Diana guursanayo Camilla wili ninka way isjecel yihiin waxa la yiri 3 cisho ka hor intuuna aroos ku dhicin Charles wuxuu sameeyay wuxuu u tagay Camilla oo ay marka muraayad baa laga sawiray oo laga arkay meel baa laga arkay Diana oo ooyeysa oo fahmisan ninkeed meesha u socdo inkastoo aroosku wili ma dhacay laakiin waxa la yiri 3 cisho ka hor bay Camilla maca telefoon soo dirtay oo telefoonka isku shaqaysanayeen marka iyadoo ay wili guursan Charles Diana waxay ogeyd naagtan inay ay guurkan ku dhex jirtaba waayo maadaama uu Charles ay Camilla ay isjecel yihiin iyadoo markaas si fiican u ogaanayso laakiin waxay og tahay in ay Charles iyo Camilla markaas ay isla socdaan laakiin iyadoo wili ma fahansana waxba waxa la ogaaday Charles inuu Camilla مع خرج مارت قلنا شري يضونن ده حاسكيس هين أو مركا وأروسكا ويجا أروسكو دعيو إنه يضو حياة بدنو إبنيه أو ده سر على قلنا يأكل لكن هاسته ده وحكست كسينيه دايانا أنا جورج أنتو كسو حريه وكدو فيه وحلي أنتي نسكورسن iyo markii kadibba wiligeed Diana waqti lama qaadan Charles markay macaa iskuursadeen marka wiigaas oo dhan waxa la yiri uma dhaqmeen qof hadda maartay gabadhan guursanaya laakiin waqtigiis wuxuu gelinayay Camilla markaas la ogaaday bada inay wax ay jiraan marka isagu muu qarin jirin ba inkastoo hadana uu qarinay laakiin aad mu qarinin markii iskuursadeen watii ay laba wiil ay Diana u dhashay 7 sano markaas arooskood markuu u dhisan yahay bay go'aan gaadheen inay kala tagaan Diana iyo Charles inay kala tagaan sababtuna xawayaan Diana waxyaabo badan bay dareentay oo inuu jeclayn maartay Charles inuu jeclayn Diana aad bay Charles u jeclayd laakiin waxay ogaatay in uu jeclayn yada laakiin Camilla uu jecel yahay oo markaa ilaa 20 sano markaa ay siqaneen oo ayna suurtagelin deeyado inuu guursado laakiin uu Diana u guursaday because waa reerka Taylor rabeen weeyaan bay noqotay oo kale marka 7 sano markaa iyaga isqaba 7 sano Diana waxay ogaatay in markasta oo doofayo ama uu leeyahay shaqan tagaya 3 wiig uma qanaanayo mar 5 wiig uma qanaanayo wuxuu la joogi jiray Camilla marka Camilla iyadu ninkii ay isguursadeen
way kala tageen marka iyadu waxay ahayd single oo kale bay iska ahayd waqtigiisa oo dhan uu marka u friga yahay Camila la joogi jiray waxa la yidhi macaan family way ogaayeen Diana miskiinada kaligeed bay maartay ay caruurteeda la joogtay oo ay iska ooyi jirtay way ogeed inuu Camila la socdo marka say Diana sheegtay bugeed ku sheegtay waxay tiri maadaama markii dambe ay ogaatay day Camila in ay ninkan ayna sii deynin way u tagtay waxay ku tiri please waxaan doonayaa ninkayga ii soo celi I don't know anu waxa naag kuma iraadeen ninkayga oran lahaa de maxaa naagtan ka daba socota laakiin iyadu markiiba way fahantay anyway inuu ninkan uu jecleen laakiin Camila jecel yahay laakiin iyadu waxay u tagtay Camila Diana Camila u tagtay waxay ku tiri ninkayga rabaa ninkayga ii soo celi Camila waxay ku tiri maxaad rabtaa adigu ku guursaday noloshii ugu fiican baad ku jirtaa adiga princess ah adiga uu ku qaba ada caruur u dhalay ilmihii maaragtay boqor noqon doona hadhowto adaa u dhalay maxaad kala rabtaa markaas tiraan uu ninkayga rabaa wax kala ma rabo waxaan aan haysto dhan waxba igama gelin ninkayga rabaa laakiin de ma suurta gelin waxay ogaatay in ay labadani ayna kala tagayn markaas markay sheegayso Diana ay leedahay 7 sano markuu aan de guurka uu dhisnaa inkastoo de say rabin marka uma dhisneen kaligeed bay ahayd waxay tiri weligay waqti imu siin bitiri waan arkaysaa sawirada marka la daawanayo waxaad arkaysaan marba sanad maartay marba ay say sawirada markaan dib u eegay waxaad arkaysaa Diana wajigeeda inuu isbedelayo oo ay murugo ka muuqato Charles iyo Diana markay isla dhoofi jireen waxay ahayd waa wax lagu khasbay ahayd oo family oo ay boqortooyo markaad u shaqeynaysid waa inaad meel badan aad khasab dinide laba maxay nin iyo naag isqabo kala meesha tagtaan laakiin raali kama ahayn waxaas oo dhan inagu markaan dadku waxay yiraahdeen anagu maan ogeyn waxa maartay jiray laakiin ismay qabin baa la yidhi of course way isqabeen laakiin isku meel badeganeen waxa la yidhi 7 sano marka arooskooda marka iyagoo de isqaba Diana iyo Charles gurigu ka tagay oo guri kale kreestay meel kale deganaa oo de marka wuxuu helay freedom moogtahay oo de Camila uu la socon doono oo meel kasta la mari doono laakiin dadka adduunka kale ma ogeen 1996 marka bay cadeeyeen in ay divorce maaragtay ay dalbadeen oo waxaana ku kaliftay islaanta boqorada baa tiri de sidan maartay dhuumashadan lagu sii jirayo waa in dadka loo cadeeyo Diana iyo Charles ay kala tagaan oo de la soo bandhigo marka way ku qasabtay inay la cadeeyo inay kala tagaan marka divorce-kii markuu dhacay Diana waxay lose gareysay magaca la leeyahay maartay Princess Diana islaanta way ka reebtay maadaama hadda ay kala tageen markii waxay doontay sameyn kartaa moogtahay marka waxay tiri intay anaga de waxa iska wada ceeb intay noo soo maartay noo soo xareen lahayd oo iyadoo princess ah ma doonayno marka magaca princess islaanta way kala noqotay title-ka sheegaya way kala noqotay marka waxay noqotay just Lady Diana loogu yeeri jiray waata marka bilowday inay ay nolol kale maartay samaysato oo ay dad badan ay marba qof nin la socon jirtay inkastoo markii dambana buugti markay qortay iyadu wada sheegtay in markii iyagoo isqaba Charles iyadoo iyagoo isqaba ay nin marka bodyguard ah oo nin iyada amnigeed maartay ilaalin jiray ay markii dambe jeclaatay oo ay tiride waan jeclaanay oo sheeka naga dhaxaysay iyadoo marka de wili la qabo laakiin iyadu bade way sheegatay waxay tiri wax kale ma jirin laakiin just ninkaas waan jeclaaday de kaliya marka noqday odayguna de waa kan oo naag kale la socday Soomaa markii dambe 96 markay kala tageen sanadka bacdi 97 waata Diana iyadoo doodii la socota oo Paris jooga waata ay gaariga maartay shilka ay gashay oo ay halka labadooda ku dhinteen wiilka de marka ay la socotay Diana markay 1997 ay dhimatay Charles de muxuu sameeyay halkiibu marka ismaba qarinay marka wuxuu cadeeyay inuu Camila uu jecel yahay waxa la yiri intaas oo milyan sagoo macaaqabin buu lacag ku furi jiray lacagtiisa oo dhan waxa la yiri kala badh Camila buu de ku hayba waxay ku nooleed nolol imagine waxweeyaan nin boqortooyo ah oo de boqor noqon doona xoolihiisa lama tirin karo marka waxa la ninkaasi islaantan sidan u eeg buu kharashkiisa iyo dhan gelin jiray aad iyo aad u jeclaa sababtan waxa la yiri waxa weeyaan ilaa markii ay yaraayeen Camila iyo Charles waxa ay sameyn jireen oo dhan isku mid buu ahaa iyadu waxay fardahay bay jeceshahay inay daawato ama ay fardahay koraan isaguna la mid marka waxa la yiri isaga iyo Diana shaqo isku ma lahayn Diana waxay meel kale ku soo kortay inkastoo iyadu bada reer London ay ka dhalatay haddana
isku wax ma xiisan jirin. Diana waxay xiisan jirtay musiga iyo dadka maaragtay in la caawiyo oo dadka saas u jeclaadeen. markii Diana uu guursaday uu dadka soo maartay ay barteen isla markiiba iyada jeclaadeen. waxa la yiri qof waxay ahayd naxariis badan. isagu waxa la yiri wuxuu dareemay in isaga aan la eegeyn way ka waran xaaskiisi baa maaragtay markasta la daneynayay la jeclaa. taas ayay isaga yara dhibi jirtay. waxa la yiri sababtaas Diana aan macaasagu maartay uu qarin jiray oo kale uu nacbaan jiray inuu iyada ka haysto meelo badan ka haysto haday ku qasab tahay mooyaane. laakiin hadda markii ay dhimatay wuxuu helay qof. sorry asxaabta videoga wiiga kala go'ay. waxaan ku dhamaynayaa marka Charles iyo Camilla waxay isguursadeen markii dambe 7 sano ka bacdi markii ay Diana dhimatay. way yara sugeen ma lumaleynaya. arooskoodu wuxuu dhacay April 2005 sagaalkeedii bay isguursadeen. ka waran maalintaas waxay ku beegneed maalintii dhaweyd uu odayga Charles aabihii uu dhintay. maalintii normally uu farxad uu ahaan lahayd maadaama intaas sano ay isqabeen. hadda waxay isqabeen 16 sano weeyaan intii ay isqabi lahaayeen ay u buuxsantay. maalintii bay ku beegantay ka waran maalinta aabihii dhintay waati jimcihii dhaweyd ina soo dhaafay uu dhintay odaygu. videoga halkaas aan ku dhameynaa asxaabta. waxaan leeyahay asxaabta Ramadan Kareem mar kale. videogan maartay waan yara dedejiyay way dhowr jeer baan duubay haddana way iga xumaatay. way isku yar qaqasan tahay iga raali noqda asxaabta. way iska taqaanin aniga xaalad aan ku jiro. insha Allah waxaan leeyahay video kale isku arki doonaa asxaabta. assalaamu calaykum.